مقافي عض بين دورنا يصيد هدير أنو كلا نبض قلا مسقف يحبط بين قادنا قيل هذا هذا بحيس قيل دانت عيدا وحي وفي يحبط بوقت سياسيين ترى بطلان وحن كجبها هذا الكيك وحن إذا كعد صارينا إذا لين خيرك قداليان لوري هرين وجور ورسوم إيا داوعة أرنتها صدلك إيا ضدك كتهاي منك ضلك وحكي دون هي ومستقبل إيا تريتان كربو بل شرفت ضلك إيا ضدك أرنتها داوعة كتهاي تبو فير منك مريكانو يرى أنا الدنيا أعلى مركب دورشدي سوداعي سنة وحي مشكلة دعضي إيا وحي بربر دعي إيا وحي شوابر دعي وادر كيسي الدنيا وحي سويدية ضدك أما شرائدية أخرية أما وحدة جيستو ورميل أفريقيا كتال ووليب الصومالية كتال وحسان ويكسو ودعي كرا وحانو إذن لأن هاي يانا لغالور مروتشين دادك رياب بطلان مانتا والغا ورقباه بكاروفانا دا لالا دحقاضي واوضا هاللين والغا ورقباه waxay doonayaan dadka reer Puntland qof wala oo kamidi maanta isagu codkiisa inuu wax ku doorto laakiin waxaanu leenahay ninkii damac ku jiro war waxaad noo soo murtaa sida dadku rabo waanu doonayna maanta inaan codkayo ku bixino noo soo mar kollay duruuf baa dadka isu keentay oo waxa laga hadlay duruuftii isu keentay waa waxa hadda taagan maanta oo ka taagan doorashooyinka ka jira wadanka laakiin anu maanta hadalkayga waxaan ku bilaabayaa bisala aan laga bahadlin meediyaha iyo saxaafadda Puntland ayaantan aad u haysatay waxa la yiraahdaa masaladaas hagbada waxaan arkay meelayaasha miday waxa ka hadlaya dadkii reer Puntland waxay leeyihiin saddex reer baa waxay nagu haysataa hagbadu qol haday naga haysataayo qol waa ka horeeysay qoladii kale waxay leedahay annaga iska laho waxaan leeyahay dadka reer Puntland anigoo qolyaha saddexdoo la tilmaamayo kamid ah hadalkaas xaal baan ka bixinaynaa maanta waxa la yiri ilmahaagu iyaga ka iskala jecelaysiya adigu ma kala jecelid haddaanu nahay odayaasha iyo dadka shacabka oo wax doortayaalka oo Puntland siyaasiyiinta Puntland oo xil doonayaasha ah oo kulligood wiilashayadii oo naga wada dhashay oo mid waxaya iyo mid hadda wax doonaya noo siman waxaan idin leenahay diinan kaya idinku iskala jecelaysiin annagu hadda idin ma kala jecelin laakiin wixii wax lagu kala jeclaan jiray haday yimaadaan dadka waa la kala jeclaanaya waxaad moodaa in ragna leeyahay ninna leeyahay wixii dadku siday rabaan oo iyagu inay wax ku doortaan rabaan aynu wax ku weydiisan ninna wuxuu leeyahay waxbaan qalmaroojinayaa sidaan anigu raba si aan ahayn wax loo dooran maayo hadda marka waxay noqonaysaa ilmihii waaridka kala jecelaadayo ninka jecel oo leh dadka reer Puntland siday rabaan inay wax ku doortaan aan wax ku weydiisan kaasaad moodaa inuu wiilkayga yahay oo siciid noo noqday waxaanu idin leenahay yaana la qaloor maroojin dadka reer Puntland maanta waa laga warqabaa bakarofanada la dhaxqaaday waa wada hadleen waa laga warqabaa waxay doonayaan dadka reer Puntland qof wala oo kamidi maanta isagu codkiisa inuu wax ku doorto qofku la doonayana siiyo xorna u noqdo waxaan doonaynaa dariiqa saxda ah siyaasiyiinta Puntland madaxweyne doonayaashu inaad noo soo martaan ninkii haatan inaysan uusan wax kaga heleen arka oo katiifadiisa ka duuduubta waxba ma biin dantiisina waa u xisaabtamay dadkiisa iyo dalkiisina waa u laakiin waxaanu leenahay ninkii damac ku jiro war waxaad noo soo martaa sida dadku rabo waanu doonayna maanta inaan codkayo ku bixino noo soo mar ninkii noo soo mar waayo hadda waxaad ogaataa adaa kaaye iskala jecelaysiiyay dadkaagii adaa isnacsiiyay kuma nicin waxaad ogaataa inaan dadkaagii ku nicin adigu isnacsiisay taasna waa iga intaas tan kale waxaan oran lahaa oo hadalkayga ugu dambaysa Puntland 2021 baa waxa la soo bilaabay doorasho in loo gudbo one warfooda marxalad badan bay soo martay
waxaad garanaysaan maalinta ay ka dhacday 30 degmo doorashadu oo dadka Puntland istaagay 12 subaxnimo oo ku gaaray 12 maqribnimo hal qof kama dharbaaxin hal buuq ma dhicin hal mushkilad ma imaan ninkii Mareykan oo yiri ana adduunyo acla markii doorashadiisu dhacaysana wixii mushkilad dhacday iyo wixii burbur dhacay iyo wixii shoobara dhacay waad arkaysi adduunku wuxuu is weydiiyay dadka ama jaraa'idiyada akhriya ama wax dhageysto war meel Afrika ku taal oo waliba Soomaaliya ku taal wax saan uga eegso dhici kara wala is weydiiyay waxaanu ku helay subcad wuxuu tagay garaafkeenu meel irka agtiisa xaaladii halkaas maraysay maanta 3 sano ka bacdi in la yiraahdo war gadaal inoo rara war sumcadda iyo dhaawaca arintaas dalka iyo dadka ku tahay ninkii dalka wax ka doonaya oo mustaqbal iyo jiritaan ka rabo bal sharafta dalka iyo dadka arintaas dhaawacay ku tahay dib u fiiri hayna dhaawici sumcaddeena waxa u dhimi waxa maanta la doonaya iyo waxa sharafta aynu wada leenahay kulligan wada leenahay haddii nuqsaan ugu dhacdana kulligan aynu leedahay way kala weeyeen waxa mudnaanta leh la qadariyo dadka iyo dalkana yaan la kufin xaaladdu waxay u egtay maanta nin bahdaayay yiri war qof iyo xabad bay is ag taagan ma qof iyo cod baynu dooranayo sida hadeer aanu kala nabad galaa mise qof iyo xabad baynu qaadanaa qaylada hadda baxaysa iyo qayla dhaanta iyo ciidanka iyo wax qof iyo xabad bay u egtay war qof iyo cod iyo qof iyo xabad bay inoo yaalle qof iyo cod aynu qaadan siyaasiyiinta reer Puntland waxaan kaga baxay hadalkayga waxaan idinka codsanaynaa idin leenahay reerka gadaaliyaan loo raray hore inuu guuro